kulan wacan saaxiibayaal halkan waa Fagaare Entertainment waa mar kale iyo muuqaal cusub waxaan marka hore ka codsanaynaa inaad subscribe saarto YouTube-keena kadibna furo gambaleelka sidoo kale like saar muuqaalka si uu meel fog u gaaro haddii aan muuqaalkeena guda galno dagaal aan caadi ahayn ayaa ka dhex qaraxay laba gabdho oo caan ka ah barta TikTok-ga ee gabdhaha ay ku fasahaadaan iyaga oo dagaalkoodu noqday mid hadalhayn ka dhaliya baraha bulshada gabdhaha colaadu u dhaxayso ee isdagaalay waa Mrs World iyo Queen Canab waxaa cajiib ah oo dad badan ay la yaabeen markii gabdhahan oo isdagaalaya ay soo galeen live oo ay daawanayeen kumanaan qof dagaalka waxaa qaaday Mrs World oo tagtay guriga ay magaalada Nairobi ka degan tahay Queen Canab iyada oo uu halkaasi ka dhacay dagaal aan waxba la isku reeban dagaalka ka hor waxaa dhexmaray labadan gabdhood aflagaado iyo muran xoogan waxaana muuqaalo la faafiyay laga arki karay Mrs World oo ka dagaalamaysa ama taagan daaqada gabadha lagu magacaabo Queen Canab iyadoo wixii markaasi ka dambeeyay ay xaaladdu isbedeshay Queen Canab oo weerarka lagu qaaday ayaa dibadda u soo baxday waxaana halkaasi ka dhacay dagaal gacan ka hadal ah yaan warka idinku daaline Mrs World ayaa muddo bilooyin ah ku sugnayd magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyada oo Nairobi u aaday si ay ula soo dagaasho Queen Canab oo khilaaf uu kala dhaxeeyay Mrs World ayaa safar kala duwan ku soo kala bixisay deegaanada Puntland iyo Somaliland gabdhahan dagaalkooda ka hor waxa ay hawada isku marin jireen hadallo xanaf leh hanjabaado joogto ah aflagaado iyo waxyaabo kale oo xiisadda ama khilaafkooda sii horin kara barta TikTok-ga oo ah bar kulmisa kumanaan qof oo Soomaali ah ayaa dadka waxay u isticmaalaan si aan anshax ahayn labadan gabdhood ee gacmaha isku la tagay ayaa horay u ahaa saaxiibo dhab ah oo isjecel wax walbana wadaagi jiray iyada oo ay xusid mudan tahay inay gabdhaha kala bareen qoobka ciyaarka in Mrs World ay tagto magaalada Nairobi ee dalka Kenya weliba dagaal dartiisa ayay dad badan ku micneeyeen heerka uu gaarsiisan yahay khilaafkooda markaan xaqiiqda iyo gunta dagaalka aan eegno Mrs World iyo Queen Canab dagaalkooda waxa uu ka soo bilowday ama uu yimid markii ay isku qabsadeen wiil lagu magacaabo Zaki oo ah wiil laga yaqaano TikTok-ga wiilkaasi waxa hadda la wareegtay oo jecel uuna isagu la joogaa Mrs World iyaga oo muuqaalo romantic ah baraha bulshada ku soo daadinayay maalmihii la soo dhaafay inta aan eegin ama idin soo gudbin dagaalka labadan gabdhood aan daawano sida ay isugu aflagaadeen jireen ama ay baraha bulshada isugu hanjabi jireen labadan gabdhood وإذا محي أقول هذا متقنا إلهي قرصي أنا بيجبدها استحفر وضع ديفتا قروح كرتي شرف لكن على قارها سدس عويني ما وريجا ونيرو بجوجو مفهمته ومال والبدات سنين وكي اف سي باهي إذن هاسمو جدا كي اف سي يعني ما كان يقول تاني نيجو صوف الفولان قوري ما خبتين مالها تتاجنتين عارفين أنا ودرب للسارين صو شيء مس درب الواسطة مس هابين سجع مالها وريجس لكن إذا قحابويناتين مركز أمد شرموطني مكنت المامسين أنا قوري هو إذا يجوجا ولا على إلى دشت قبدا إلى دشتين أنا بيلا انتظر عنا يكفكر يوالد خبا لكن إذا والد ما خبتين دت كينا مالها سيكل الجيران Soomaaliya markaas inta nigu soo tuureen sharmuutoonni ma gashan amela jiftin la diin nimanka KFC ni siinayaan habeen dhan bada haysanayaan ilooshin yihiin dagaalka gabdhahan oo si live ah dad badan ay u daawanayeen isla markaana hadalhayn badan ka dhaliyay baraha bulshada ayaan ahayn mid ku cusub dhigaha dadka waxaana horay si live ah isku dagaalay gabdho badan oo TikTok caan ka ah markan ila daawada muuqaalka dagaalka oo si toos ah u dhex marayo labadan gabdhood صوص عشان موضوع ادوى مسجانة ادوى حاطة نسينا الباب واللي دي واحد تفيري صوصة أنا أشهد بفير كان يجي هذا صوبة إذن هذا صوبة يعني أنا واحدة عشو أنا هنا دايرة هذا الشيء وكأنها يتري ما عشت مركب محيوس عيتنا ما بحبك بتشوف ده ما حد هذا كمان أنت كله إبليس هذا الجرين هذا
لا صاحبي ورقي ويجي يمكن وحين ما يا صباح هذا في مرت عليك ويسا فيري ما صباح له انا لما كاميرا انا حبيبي هاي سحروا قبل ما قال كاميرا محليه مود لسارو يا أدمنك هاي وقف مود سارو باوري لو كنا شنبقل فلو أليسو سيو أليسو فلو كريو هاركان دادك كالي وشار كريا وحي إلا سعودة بارتي توتي كان ورطة معانا عيو وحارة تيك توك لنا كهادي ووجي كده كوين عنب والدي الوجي كما لدي لا يعني نعيدا سدح جيرا سباحة دي ما فهمتي كاميرا قريق ويشدنيد طمنا كوي مادين سدحت ما يكجيداين adiga tabarxumadaada muujidayn alla yaabaya naxay waxa sida qof weyn kugu soo duul meeso caloosheeda ba qaadila ku qarinaysa laakiin alxamdulillah ilaaha dhulka adiga ka soo hormari caloosheeda ka cabsanaa weyninka badan ale na aabahay muujidaas wax walba diyu bixiya niman rag muujidaa ina dilo xaniyooda ina ka gooya gacmaha u saari jira meedkooda la duugi jira ma adu siil ku jeexana ku daahayana naagto ku yincana kaamirada guriga la soo fiiray qofka labada dhulka la dhigta ana sheegayeen saddex jeer ba sabaaxaday dhulka la dhacay markaas naxay waxa sida saar ma ku soo degtay qofka ka qalay markaas ay ayadeeda hoos dagaalka na saddex naaga timaha iga jiidayeen adiga ku sabaaxadeynay naaga quruxdeeda ku canaanta horta ma bataabta naaga aabahin hantidiisa dhan way ka dhamaatay soo diyo u bixinay niman raga dilay ku daaya waxa eeg ulul badan yahay la dhahay war tuma naagi yani uu soo weerartay والله ناقل جمدو قسيدة هاي أنا الناس كاقدير بدنو سبحانية يا علاش هذا موجود إسكورسار كبخنا يسده هبدي كود هذا لو مو بأركاي بلاكيني ما كقولك كواركي أقولك كود لكتيو سدح جركو سباحة دي مركز عنيقة واقبوبي والله هذه ما هي أفرطن جرا إسك علي أنا سديد توم جرا سيل كاقميت موجودة ومدك قرصو كين أنا موجودة قرية وصورت أنا وحى كجودي دجالك أيدي مركا أي عادي موجودة أجودي ولقينا أنا والد قداشيس كما حد لستري وعتاي فضلا داودي هداد كشيء muuqaal kan subscribe saar kadibna fura gambaleelka sidoo kale like saar muuqaalka si uu meel fog u gaaro waad ku mahadsantihiin nabadgelyo